qarnigii 12aad waa la yabay boqortooyinkii madooba ee jiray hal ayay ugu duuleen oy duumiyeen dhulkiina ka qabsadeen markay qabsadeen dhulkii Masaar u dhawaa waxa marklay boqorkii Masar bariga xukumi jiray oo la dhihi jiray Ramseski saddexaad dagaalkaas meel ayuu ku qoray ku tala ilaahada Masaar iyo guushii uu ka helay dagcadka markii ugu horeysay ay rabeen inay qabsadaan sanadku markuu ahaa u dhawaan 175 Ramseski saddexaad ayaa maqlay inay rabaan inay ku soo duulaan si degdeg ah wuxuu diray ciidan badan oo isku jira kuwa luugta ku socda kuwa faras ku socda iyo kuwa markab ku socda si ay uga hore tagaan cadowga dagcadku waxay ahaayeen dad dibaad galeena oo bila naxariis ah markab badan ku socda Ramses wuxuu kabsaday maxaabiis badan kadibna ciidanka Masar ayay ku bireen Ramses iyo ciidankiisu diyaar ayay u ahaayeen kuwii luugta ku soo galay way iska ceeliyeen kuwii badana Ramses ayaa la socday oo markab saaran dagaalka kadib Ramses ayay guushu raacday dagcad waa laga guuleystay